أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحبابت ملك سنة دعوانيسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى عاو قصدنا waxay ahaan doontaa mid laba qayb u qaybsan. qaybtii koowaad baanu ku bilaabaynaa insha allahu tacaala. qisadani waxay sida ciwaanka uu ka arateen ay tahay imaa inaa ku furo inaad diinta islaam ka baxdo, labadaas mid dooro. qof walbaa markuu islaam maqlo magacaas aad buu ula yaabayaa, way ku cuslaanaysaa. qisadani marka waxay dhacday xilligii nabiga caleyhi salaatu wasalaam, waxayna ku dhacday gabar saxaabiyada. xilligii nabiga alayhi salaam dacwadii oo lala soo saaray, nimankii kufaaro qoraysh ahay waxay in badan caado ka dhigteen inay dadkii muslimiinta markaas islaamiya diinta qaatee towxiidka ilaahay qaatee sanamyadii ku kufriyey inay dhibaan ay rafaadiyaan. dad fara badan bay dhibeen oo xataa heer waxay gaarsiiyeen cadaabkii cadaabayeen korkooda wax dheecaan laga waayo sida waxay u cadaabayeen darteed. waxaa kaloo kamid a saxaabadii la cadaabi jiray ee aada u rafaadiyeen, sayidina bilaal baa kamid ahay. waxaa kaloo kamid ahay qoyskii aala yaasir. yacni way fara badnaayeen, aada bayna saxaabada nebigu dhibi jireen caleyhi salaatu wasalaam. dadkaas waxaa hogaanka ahaayo barnaamijkaas wadana wuxuu ahay abu sufyaan. ninka la yidhaha abu sufyaan ibnu xarbi buu ahay ninka barnaamijkaas dhan watay oo dadkii in nabiga raac caleyhi salaatu wasalaam in la dhibo aada uga talin jiray. asiga wuxuu ahay qoreysh ninkii u sareeyey, hogaankeedii buu ahay. talada asigii bay ka go-day. cid baa amarkaada khilaafi karta oo waxaada raalli ka en samayn kartaa kuma jirin. wax walbaahi waxay ula muuqdeen inay taxta xukmihiin asigana maamulo. dadkan kale ee nabiga raac caleyhi salaatu wasalaamne aada buu u dhibi jiro oo sida dadkana uu ku diri jiray inay dhibaan. laakiin arrintaasi waxaa aada uga hor imaatay gabadhii oo dhalay ee la dhihi jiray sayda ramla, kunyadeedana ahayd umma xabiiba. gabadhan umma xabiiba radiallahu canha waxay ahayd gabadhii ninka la yihahdo abu sufyaan. way islaamtay iyada iyo seegeeda cubaydillah. markay islaameen ay diinta islaamka qaateen, asnaamtii la caabudi jirin ay ku kufriyeen, ay kelimadoodii ay cilaamiyeen ee towxiidka laa ilaha illa maxamad rasuulullah, nebigana ay u qoreen risaaladii, aada bay qorash u kacday. waxaana la go-aansaday in dadkii yacni rumeeyeen nebiga alay slat slam in si khaas loo ciqaabo. laakiin abu sufyaani arrintan xujo khaasa baa si ku noqotay. waxa uu dadka kula dagaalami jiray, maxaad u rumayseen nebiga caleyhi salaatu wasalaam, maxaad sanamyadeena ilaahyadan ugu kufriseen, maxaa intaasu dadkii kula dagaalami jiray. laakiin maanta wax asiga yani beeniyey warkiisa oo khilaafay ilaahi subxaana watacaalana rumeeyey, nebigiisana caleyhi salatu salam nabinimadan u qiray, waxay ahayd gabadhiisii ummu xabiiba. ummu xabiiba radiallahu canha markay islaamtay aabaheed aada buu uga carooday, waa uu xanaaqay, waa uu dhibsaday. dadkii marka reer quraysh markay ogaadeen in gabadhani iyo ninkeeda oo aada uga xanaaqsan yahay abu sufyaan, ilan gabadhaadiya baalka si xujada taa laga awaayo, see dad kale ula dagaalamaysaa, maxaad u sheegaysaa gabadhaadiyaaba diinta islaamka haysanin, yani gabadhaadibaa yani asnaam diinta islaamka qaadatay, gabadhaadiya asnaamtii ku kufrisay, dad kale maxaad u sheegaysaa, maxaa kula dagaalamaysaa, xujadii arrintii ku noqotay. ninkii la yihahdo abu sufyaan aada buu gabadha uga carooday. heerkaas markay mara dadkii kale markay ka faa'idaysteen, dee gabar aabaheed u careysan yahay bay noqotay in aada baa loo dhibay. marka dhulkeeda ku dhalatay ee kusoo barbaartay oo ehelkeeda iyo axabadeeda iyo waalidkeed ay joogeen baa lagu dhibay ilaa ay magaaladii ayadii ninkeedii ay cariiri ku noqotay. aada bay uga coslaatay, wayna u dul qaadan weysay yani dhibkay rafaadka lagu hayo. nabiga caleyhi salaatu wasalaam inaa ku salaysa baa rajeen nabiga caleyhi salaatu wasalaam markii dhibkii saxaabadii u batay, aada loo rafaadiyey, wuxuu u idmay
inay hijroodaan. hijradii markuu idmay saxaabadii waa ay baxeen dhulka ay xabashadii aadeen. dadkii hijrooday oo dhulkaasi aaday maxaa kamid ahay qisada gabadhaanu ku hadlayno insha allahu tacaala umu xabiiba waa kamid ahayd. umu xabiiba iyo gabadheedii yaraad oo xabiiba la dhihi jiray iyo seegeedii cubaydillah baa dadkii kamid ahay. marka saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ay tageen. markay tageen oo ay boqor najaashi dhulkaas bay aadeen, halkii bay magangeli u raadsadeen. reer qoraysh arrinkaahi aad bay u dhibsatay, mana ay jeclaysan. waxayna go-aan ku gaareen in dadkani la soo celiyo, dadkan in la soo celiyo ilaa ay cibaadada asnaamta ay kusoo noqdaan in lagu soo celiyo buu go-aankoodii ahay. rag bay ka daba direen. marka saxaabadii meesha tagtay ee islaayeen dhibkii baa kasoo baxsateen, ee islaayeen haddeetaan baad diintiina xor u tihiin oo waxaa rabtaan samaysan kartaan oo ilaahigiina khaaliqa ee waaxidka ah aada caabudeysaan. intay halkaas markay maraayeen wafdi baa reer quraysh dhankooda ka imaaday oo boqor najaash u tegay. wafdigaasi waxay ku andacoodeen dadkan aada mudan geliseen ee dhulkoodii kasoo cararay oo diintoodii kasoo cararay oo ilaahyadoodii kasoo tegay, idinkan idinma soo raacin oo dad kiristaana ma noqon, annagiina waa naga soo tageen. wax qaldanoo baasoo la garanaynin bay la imaadeen. loona baahan yahay in sharta noocaani laga hortago. haddaan laga horteginna aafo badan ay keenayso. waxaase taas kaaga sii daranba waxayba aaminsan yihiin in ciisa uu yahay nebi ilaahay oo aada garanaysaan. waxay yidhahdeen ciise ayaga waxay aaminsanaayeen inuu yahay wiilka ilaahay. maryamo bay leeyihiin addoomad bay ahaayeen. marka dadka noocaas aaminsan diinteennina kasoo tegay tiiniina aanan soo gelin wax cusub oo aan nagu cusubna ay wataan, arrinta noocaas oo kale ah baad magan geliseen. boqor najaashi warkii markuu maqlay, nin caadil buu ahaaye saxaabadii nabiga alay slam buu u wacay. war wuxuu yidhi waxa laydinka sheegay waa maxay? muxuuse nabigiina calayhi salaatu wasalaam idinla imaaday? markaasay saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam khudbad dheer bay jeediyeen oo kamid ahayd annagu nabigana wuxuuna amray calayhi salaatu wasalaam inaanu wanaagis farno, inaanu qaraabada xiriinino, inaanu keena daciifka aanan ku tutumanin, keena inaan ixtiraamno. waxyaabo khasaa'il fara badan oo wanaagsan bay ka sheegeen. halkaasi markay maraysa buu boqor najaashi wuxuu ku yidhi wax ma jiraa oo qur-aana lagu soo dejiyey? markaas waxay yidhahdeen haa way jiraan, qur-aan baa lagu soo dejiyey. markaas wuxuu yidhi aayadaha qur-aanka iyo akriya. aayadihii bay akriyeen. aayadihii markay akriyeen boqor najaashi ilintii ka imaatay garkiisiiba qoysay. markaas wuxuu yidhi waxaan oo la imaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo wixii nabiyullahi ciisa calayhi salaam oo la imaaday hal nuur bay kasoo wada baxayaan, waa isku wada mid. boqor najaashi waa islaamay. awal waxay lahaayeen dadkan saxaabada ha la soo ceeriyo, magaalada ha laydin keeno, aada dhibtaan, cadaabkii ay ka carreen mid ka daran aada gelisaan. laakiin boqorkii beledkaas baaba islaamay. qaar ka mida familkiisiina waa islaameen, wasiiradiisii qolyo baanan islaamin. intaas xaal markuu marayo wafdigii qureysheed ay hungoobeen ujeedadii ay lahaayeen ay waayeen baa marka waxaa dhacday dadkii saxaabadii marka aada waxaa lagu yiri xor baad tihiin, wadankan xor baad u tihiin, rabbigiina ku caabuda, cid idin xoog idinkule ma jirto, saan ammaan maanta idiin siibaana ammaan u haysataan, cid aa idinku wareejinayo oo meesha adeegayana ma jirto, idinka ikhtiyaar u leh. saxaabadii aada bay u farxeen. marka arrintii aada bay u farxeen, khaasatan gabadhan umu xabiiba ah ee aan caawa ka sheekeynaynay aada bay u farxday maadaama diinteedii ay xor u tahay, maadaama dhulkii dhibka badnaay ee lagu cadaabaye ee ka soo baxday, aada bay u farxday. laakiin farxaddaasi ma ahayn mid raagtay. imtixaan kale oo ka daran baa haddana u heliyey oo ilaahi subxaana watacaala imtixaanayo, laakiin ilaahay baa u qadaray guul. imtixaankaasi muxuu yahay? mar alle markii ay degeen oo dadkii caadada joogeen ayaga iyo seegeedii bay habeenada kamida gabadhani saaxaabiyadda jaliilka waa ay riyootay. markay riyootaba waxay ku aratay riyo ninkeedii oo badda yani xaalad xun aada u soono biyaha dul marayo oo mugdi ah, xaalad aada u xun buu ku jiray. way inaxday, hurdadii bay kasoo booday, waxay ku noqotay lama filaan. yacni riyadan argagaxa leh ay ku aratay xaalka ninkeedii, mana aysan sheegin oo way iska aamustay.
halkaasi markii maraysay habeenkaasi maalinkii xigtay baa ninkii u imaaday marka wuxuu ku yiri gabaryahay dhegeyso aniga runta baan kuu sheegayaa diinta islaamka waan ka baxay kristaan baan noqday hadda waan gaaloobay adiga marka laba udub ku qosaysaa inaad diinta islaamka ka soo baxdid oo aan safarkeennii wadano iyo inaanu ku furo ilaa furin meeshu ninku waa murtade sidii buu ku yiri gabadhii aad bay ula yaabtay argagax bay ku noqotay ninkeedii oo intaasoo safar isla soo mareen intaasoo dhib isla soo mareen ay maanta farxadan ay ku noocawsan lahaayeen maanta ay murugadii ka bixi lahaayeen inuu arrinkaasi kula soo waajaho arrintii aad bay ula yaabtay waxay ku noqotaa makaag halkaas markay marayso marka gabadhii marka saxaabiyadda ah su-aashan ah ama furiin dooro ama in haddii alla kurin diinta islaamka ka baxada mid dooro markuu yiri ayada waxay ku noqotay saddex arrin mid dooro marka saddex arrin baa isugu timaaday waa midda koowaade inay diinta islaamka ka baxdo taasoo ah walciyaadu bilaahi inay adduun iyo aakhiro khasaare ay qaadato adduun iyo aakhirada inay khasaarto camalkeedii inuu burburo imaa iyo inay reerkeedii ku laabato oo aabaheed iyo dadkeedii ay u noqoto taasina diinteediina lagu dhibo taasina waxay ahayd midii ay ka soo carartay baana weli taagan tan saddexaad oo ah dhulkan qurbaha ah ee keligeed ah ee ninkeediina saan leeyahay inay sii joogto saddexdaas arrin baa soo waajahday insha allahu tacaala kulankiina labaad baanu qisada ku dhamaystiri doonaa insha allahu tacaala saxaabiyadda ramla umu xabiiba qodobkii dooratay maxaa ka dambeeyey murugadani farxadda ka dambeysa maxay tahay muxuuse ilaah ugu bedelay waxaan isugu imaan doonaa qisadeena dambe hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu